subax wanaagsan dhegeystayaal waa maalin sabti ah 30 bisha Abriil sanadka waa 2022 saacaduna waa 7 subaxnimo barnaamijka subaxnimo waxaad ku maqli doontaan gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka oo maanta lagu wado in xilka la wareego rabshado diimo salka ku haya oo ka dhacay magaalada Dirdaba iyo booliska oo lagu eedeeyay in rasaas nool dadka ay ku rideen dadka ka ilmeeyay saacaweyn ugu balaadeen maanta qofkii gacmaha la isku leeyay waxa weeye ninka muwaadinka islaamka cadaalnimo markuu dhagax ku tuuray la hujumay barnaamijkiisii iyo talooladii ugu jabeen oo dadka wax xabadaan nool baa ku dhacay booliska Canada oo gacanta ku dhigay nin asalkiisu Soomaaliya oo aad loo raadinayay waxa kale oo aad maqli doontaan sagaal ciyaal baan qabaa sagaalka ciyaal waxay dheen hooyoy annaga dharqiid baan u baahanay dharqiidka noo keenay yiraahdeen dharqiidkina uma hayno maanta hadii aan waxaan u haysan lahayn ma cawaadi lahayn waa duruufaha haysta dadka tabaalaysan ee ku nool Boosaaso xilli la isu diyaarinayo ciida wararkii ciyaaraha ayaa intaasi dheer barnaamijka waxaa soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan waxaana idin la socodsiinaya aniga waa Maxamed Shil Xasan faafahinta qodobadaasi way noo soo socdaan balse marka hore warkii caalamka iyo Mucaawiye Maxamed Buraale maasanid Maxamed wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in ka badan 1 milyan oo qof laga dadguray Ukraine lana geeyay Ruushka tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ukraine ayaa horay u weedeystay Ruushka inuu dadka ka soo dadguranayay xadka iyagoo aan raalli ka ahayn Mr Lavrov ayaa sheegay in kumanaan ajnabi iyo sidoo kale dadka yimid Donetsk iyo Luhansk ay ka mid yihiin dadka la geeyay dhinaca Ruushka madaxweynaha Ecuador Guillermo Lasso ayaa 60 maalmood oo xaalad degdeg ah uga dhawaaqay 3 gobol oo ku yaala dalkaasi si wax looga qabto kororka heerka dambiyada ee loo aaneynaya kooxaha ka ganacsada daroogada kumanaan askar ayaa la geyn doonaa wadooyinka magaalooyinka Guayas, Manabi iyo Esmeraldas waxaana xaafadaha qaar la saari doonaa bandow kooxo waysan ayaa toogasho ku dilay askari ilaalaka ahaa deegaan ku yaala dhulka Israa'iil haystay daanta galbeed meel kale oo ka tirsan daanta galbeed nin Falastiini ah ayaa ku dhintay iskahorimaad dhexmaray isaga iyo ciidamada ammaanka Israa'iil waxaa jira walaac soo taraya oo ku saabsan wararka marin-haweynta ee lagu faafinayo online-ka kadib kororka la sheegay ee ku saabsan cudurka hepatitis ee ku dhaca carruurta kaas oo aan wax sharaxaad laga bixin saraakiisha ayaa sheegay in caabuqa adenovirus laga yaabo inay ka dhasheen kiisaskan ugu dambeyntiina saraakiisha caafimaadka ee gobolka California ayaa sheegay in aad sare u kacday tirada dadka ay soo gaareen dhaawacyo daran ama dhimanaya kadib markii ay ka soo dhaceen darbiga u dhaxeeya xadka Mareykanka iyo Mexico tan iyo markii maamulka Trump uu sare u qaaday darbiga kala qaybinaya labada dal dhaqaatiirta waxay sheegayaan inay soo bateen tirada dadka ay waxyeelada ka soo gaartay darbiga ee lagu qaabilayo isbitaalada warkii dunida naginta mahadsanid Mucaawiye Maxamed Buraale aan ku horeynay waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu wadaa in lagu qabto kulankii ugu horeeyay ay yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii la soo gabagabeeyay doorashada gudoonka golaha shirka xildhibaanada oo dib loogu celiyay xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa ayaa waxaa la filayaa in gudoomiyihii hore Maxamed Mursal uu xilka ku wareejiyo gudoomiyaha cusub Sheekh Aadan Madoobe wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa inoo haya faahfaahinta warkaasi Ibrahim Maxamed maanta la filayaa in kulankii ugu horeeyay tan iyo markii habeennimadii Arbacada ahayd la doortay gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo habeenkii Khamiista oo la doortay labadiisa ku xigeen in ay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka isugu yimaadaan kulankoodii ugu horeeyay waxaana loo sheegay xildhibaanadu inay maanta ku soo xaadiraan xaruntooda Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho maanta waxaa dhici doona gudoomiyihii ku meel gaarka ahaa ee golaha shacabka odaygii ugu da'da weynaa golaha soo maareeyay doorashada gudoonka Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan Dhaban Cad ayaa la hadli doona golaha wuxuu kaga sheekayn doonaa muddadii uu baarlamaanka si ku meel gaar ah u hogaaminayay iyo sidii ay ugu qabsoontay doorashada golaha shacabka marka dabadeed isna waxaa hadli doona gudoomiyihii hore ee golihii shacabka ee baarlamaanka tobanaad Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo isna ka sheekayn doona muddadii 5 sano iyo dheeraadka ahayd waxyaabihii golaha u qabsoomay isagoo xilka ku wareejin doona gudoomiyaha cusub ee la doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe xil wareejinta kadib ayaa la filayaa isna in gudoomiyaha cusub Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe inuu halkaasi khudbad dheer ka jeediyo khudbadaasi kadib
waxyaabaha la filaya waxaa ka mid a maxamedow in guddoonada labada aqal ee baarlamanka hadday tahay aqalka sare iyo golaha shacabka ee baarlamanka federaalku intay isu yimaadaan in ay ka wada hadlaan xilliga ay qabsoomayso doorashada madaxweynaha sidoo kale in labada gole ay ka shaqeeyaan samaynta guddi wada jir ah oo labada aqal ka kooban kuwaasoo qabanqaabinaya doorashada madaxweynaha waxaana la filayaa in toddobaadyada soo socdaba la qabto doorashada madaxweynaha si loo soo gabagabeeyo doorashada waqtiga dheer qaadatay iyadoo khilaafyo badani ay hareeyeen dhanka kale weli iyada xal looma helin 16 kursi ee gobolka Gado inkastoo labadii habeen ay isxigtay la kala dooranayay gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeenba aanay codaynta ka qayb galin haddana weli war rasmi ah ku saabsan arrintaasi ma soo bixin waxa laga yeelayo doorashada madaxweynaha dabcan waxay noqon doontaa hawl u taala guddoonka cusub ee golaha shacabka. aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Maxamed Aadan wararkaasina wixii ku soo kordha dib ayaanu idinkala soo socodsiin doonaa waxaa xalay bando qaybo ka mid ah magaalada Dirdhaba ee dalka Itoobiya kadib rabshado halka ku dhexmaray dad muslimiin ah iyo laamaha ammaanka dadka mudaharaadayay ayaa ka caraysnaa dilal maalmo ka hor ka dhacay magaalada Gondar ee gobolka Amxaarada oo lagu laayay in ka badan 20 qof oo muslimiin ah isla markaana lagu gubay dhowr masjid Sultan Abdi Adosh indhayare oo kamid ah odayaasha dhaqanka Dirdhaba ayaa iiga warramay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda magaaladaasi sumcadda markii laga soo baxay waxa bilaatay rabshado gacanka hadal bilaamay waxayna ka bilaabeen koonfurta magaalada meesha Cornell iyo laga hare iyo allay baday inta ay gugubaha intaas ka bilaabeen gacanka hadal oo maartan ciidan iyo dhalinyar isku gacan qaaday oo waxa weeye halka gacanta la saaray kulli oo garanaysa meel ciidan joogo dadka maartan rabshado ay bilaabeen waa shaqada ku jira waa la qabtay oo maartan dadka in badan baa la caawa jeel ku jirta wax dhaawacna waa la sheegayaa dhibaato badan iyo garaacna waa la sheegayaa hawshaasi caawana wayna soo gaadho miskiidadii bay gaadhay oo maartan kolkii dhagaxtuur iyo wadooyinka dab lagu shiday iyaguna waxay micnayeen in macalisiinadu ay hayeen ku tuuraan oo dadka ka ilmeeyay waliba makiiga ku tugan yahay dhibaato badan baa naga dhacdo kulli waa dhibaato aan filayn in ciidan nagu dhacdo laakiin wax qoran bay ahayd insha Allah maartan ilaahay waan baryaynaa ilaahay noo salo maxay ka dhalatay dhibaatada markeedu hore waa kan la sheegayo gobolka Amxaaro Gondar iyo dad lagu laayay muslimiin oo Sodon iyo Siyaada maraya iyo miskiidada la gubay oo iyagu dhawra arrinkani diin buu sax ku hayaa mar haddii waxa uu bilaabmay وانا لا جوري مسلمين تو وحوي أدب ما تلو وحيا الشدة ذا لجوبي دتك على اللي مسلم كا في الشهر رمضان أنا محتاج جيسين وركان هلي إنه حيشجعان المسلمين تو أي دقيقة بنبح النبضات صلاة الجمعة كدب مركم حاكيين عيد مد سوي فرق جليان محي كده حركان كل تو حوي دت بنبح ونبض الصعداء ودتك أو بنبح حق بيقولين دتك وين دي كتم غلانوي سن نبض أو بنبح دتك دتك حق بيقولين لكن ما كان الغصان ما بنبح كرو وكأتي ويان وأبود كلويان كان يسلي بعوال عيجا وحقيقة اللي بسور قاضي عبيسا مسكيدة دي ناقة حق قولي بكسور ديان كوجين وعيجا يان خطر وين هذا كاتو حوي إنه سيب لنا وانكبر قاينا وارجع وحبنا نرش دك صاليانا aad baan uga baqaynaa maanta la heradii rabo waa la xidhay kulkii maxaan ku leeyahay dalka laga iibsanay ciida waa la xidhay markii laga soo baxay jamcad banaanbax loo dhaqaaqay iyo xabad dadka lagu jawaabay dadku waxa weeye in lala hadlay oo sanadada loola hadlo ama wadaashooda baa loo keeno lagala hadlo deegaanka jira salbaana jira dhaqan kale jira dad aqoon la jira iyo dadkan haddii maartay dadkooda in lagala hadlo ay dadka si fiican loo wada hadlay ayde jawaabtu waxay noqotay xabad in laga horgeeyo oo ummadda maxaan ku leeyahay la caburiyo muxuu yahay marka khasaaraha ka dhashay ma noo sheegi kartaa خسارة كذا شواد قرني ساعدنا هو بيصني يتشعب وقعمه مريين كل قبتنا ولا جيتنا يا وسعر حلو قراعيا يبني سبوا الجنب بجيل كلنا يا نضال ده وعنا ولا شيء ولا فرد يالو لي تاني ولا نقص شيء صار مش هجي تاني لكن أنا طعم عظيم كذا مش يجيكتو لكن داوع ولا سعد مرة ثانية يعني فرد الجوجان والنص سعد وأهل كذا لي وأنا بريء في جد بسوق لي وأنا طبعا وصير دمانيا ووقت جدتكم مرة ثانية إلهي بريئين waxay dhibaatadani ku dhacday wallahi waa arrin laga xumaado weeyaan ilaahay wax ka baryana arigaasi in si nabadaan ku cilno ilaahay waxa laga joojiyay ilaahay ka baryana booliska marka ay kala eryayeen dadka banaanbaxayay salaadii jimcaha kadib maxay isticmaalayeen sadaqada ka ilmeeyay saaca weyn ugu bilaabeen maanta qofkii gacmaha la isku leeyahay wax way taabay ninka mawadka islaamka cadaalnimo ma ku dhagax ku tuuray la hudumsa banaanbixiisi iyo talooladii u jabeen oo dadka wax xabadaan dhool baa ku dhacay maxaa keenay in arrin ka dhacday Gondar ay saamayso deegaanka Dirdhaba iyo meelo kale oo xitaa Soomaalidu ay degan yihiin haddii kaniisad la gubo oo ima kaniisad dib loo geysto waxa weeye oo Dirdhaba yani kaniisad ay ku caabudaan waa masaajidkooda nibadiintu soo haystaay
in wax lagu tuuro matal dhibaata ay kaniisada ay gaadho waxa dhacaysa iyaguna inay masjidada amxaara ku dhahay inay dhibaateeyaan waa wax diiniya weeyaan waxa weeye nin walba diintiisiibuu iyuu difaacaya u dagaalamaya una ka damqanaya nin walba diintiisuda difaacaya weeye laakiin gacanta horaa gartana ma leenahay marka ma jiraa wax dhaqdhaqaaq oo hadda labada dhinac ay isugu soo dhawaanayaan kollayta waxa weeye magaalada maayir bay leedahay iyo maamul iyo hoggaan nabadgelyo iyo dhaqan bay leedahay waxaa ku filanaa un in si nabadgelya loo wada hadlo arrinkani xal loo helo unbaan ka filanay badii alla dhaa madaxdii maatan meesha xukumaysa kaasina waxa uu ahaa suldaan cabdi cadoosh indhayare oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada dirdhaba oo qadka iigu warramay kana warramayay arrimo ku saabsan xiisado dhinaca diinta ah oo ka taagan halkaasi halka aad naga dhegaysanaysaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. nin asalkiisu yahay Soomaali oo kaalinta koowaad uga jira liiska dad ay doonayaan laamaha ammaanka ee dalka Canada ayaa lagu qabtay wadankaasi. Booliska Canada ayaa talaadadii sheegay in lacag dhan 250 kun oo dollarka dalkaas ah ay ku abaalmarin doonaan qofkii la wadaaga xogta Cabdicasiis Maxamed. haddaba waxa uu yahay ninkaasi iyo dacwadda loo haysto ayaa waxaan ka waraystay wariye Durraan Xasan Yare oo ku nool magaalada Edmonton ee dalka Canada. muddo ayaa la raadinaya maxamedow ninkan haatan sida dawladdu ay sheegtay gacanta ayaa lagu dhigay waana la xiray xilliga la qabtay ninkan waxa la sheegay inuu isticmaalayay dokumentiyo been abuur ah uuna joogay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto. maxay tahay sababta dawladda Canada ay ninkan u daba joogtay oo lacagta faraha badan madaxiisa loo duligay? maxamedow bishii October ayaa sida la sheegay hotel ama maqaayad ku taala gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto waxa la sheegay ninkan iyo nin kale oo cadaan ah in muran uu ku dhex maray ayagoo ku jira markaas gudaha maqaayada dabadeedna ninkan Soomaaliga ah ayaa la sheegay inuu banaanka u baxay meel baabuurta la dhigto baakina ayaa la sheegay inuu ku sugayay ninkii cadaanka markuu soo baxay ayuu sida la sheegay halkaas ku dilay dabadeedna qaybaha gurmadka degdega ayaa ninkaasi halka ka qaaday wuxuuna ku geeriyooday isbitaalka. intaas kadib waxa jirtay dabagal lagu hayay waxaana la soo saaray arrin la xiriirta in laga yaabo ninkaas inuu hubeysan yahay dadkuna ay iska ilaaliyaan dabadeedna sidaas ayaa dawladdu ku sheegtay in qofkii keena xogta ku saabsan arrinta la xiriirta ninkaas in lacag intaas dhan la siin doono. sida ay sheegtay haatan ayay dawladdu u suurtowday inay gacanta ku dhigto sidaas ayaana lagu soo xiray arrintiisuna sidaas ayay ahayd maxamed. ninkan hadda waa la xiray maxay tahay falalka xiga ay dawladda Canada samayn doonto oo ay ka qaadi doonto? sida caadada marka qofka la soo xiro ama ha noqdo qof si aad loo raadinayo ama ha noqdo qof dambiyada yaryarba lagu soo eedeeyay waa maxkamad suge maxkamadaas ayaa waxay go'aan gaari doontaa waxa uu mutaysan doono. marka waqti xaadirkan sida la filayo maxkamad ayaa la soo taagi doonaa maxkamadaasna dabcan go'aanka kama dambaysta ah ayay ka gaari doontaa. laguma dhawaaqin weli xilliga saxda oo maxkamadiisa la qaadi doono laakiin sida la filayo dabcan wixii maxkamadaas ay ka soo saarto go'aan kama dambaysa ayaa noqon doona waxa uu mutaysan doona markaas ayada ah. inta badan dhalinyarada Soomaalida ee dalka Canada wararka dhinaca ka yimaada inta badan waxay sheegaan in uu ka dhex jiro isdil iyo khilaaf mar walba. arrintan maxaa u sababa maxay isu dilayaan dhalinyarada Soomaalida? waa su'aal muddo taagnayd ilaa haatan wax jawaabteeda saxda ah haya dabcan waa yar yihiin. waxaad la socotaa inaan tabinay marar badan warbixinada ku saabsan dilalka ay isu geysanayaan ama ayaga loo geysanayo muddo ayaa arrintan ay soo socotay ilaa haatan wax sabab u ah oo arrintaas caddayn kara ma jirto laakiin dadka qaarkood markaad la sheekaysatay gaar ahaan waalidiinta iyo dadka inta badan laga yaabo inay xog ogaalka arrimahan u yihiin waxay ku sheegayaan in ay jiraan sababo badan oo ku kalifaysa dhalinyaradan in ay duurka galaan ama ayagu ay waxyaabaha noocan oo kale tahay falalkan oo kale ay lugta la galaan. waxyaabahaas waxaa ka mid ah inta badan qaar ka mid ah waalidiintu ku sheegayaan inay shaqo la'aanta haysata dhalinyarada in ay qayb ka tahay oo qaar badan oo ka mid ah la sheegayo in aysan shaqo munaasaba ama shaqo joogta aysan helaynin. sidoo kale waxaa ka mid ah in qaarkood aysan waxbarashadii dhamaysanin
oo ay taasina sabab u noqotay markii iskuulkii uu ka baxay asagoo waxbarashadii dhamaysanin in ayada laftigeedu ay sabab u tahay inuu waxyaabahaas oo kale uu lugta la galo magaaladan Edmonton oo kala hadlayo wax ka yar bil baa laga yaabaa intaas oo dhimasho iyo dhaawac inay isu geystaan marka waa arrin haatan aad looga baqayo muddana soo socotay marka ka dambeysana si siyaadaysa Maxamedow isdilkan dhalinyarada soo laabtay ma jira wax falcelina oo dawladda Canada iyo jaaliyadda Soomaalidu ay xal ugu raadinayaan marar badan ayay isugu yimaadeen waalidiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu sida arrintan xal looga gaari lahaa marka dadaal way jiraan waalidiintu dadaal ayay muujinayaan dawladdu sida ay sheegtay dadaal ayay muujinaysaa laakiin ilaa iyo haatan wax muujinaya in arrintan ay sameynayso wax hoos u dhaca ma ay jiraan Maxamedow waa tahay kaasina waxa uu ahaa wariye Duraan Xasan yare oo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada oo iiga warramaya arrin ku saabsan lin asalkiisu yahay Soomaali oo ay si aad ah u doonayeen ciidamada ammaanka ee dalka Canada oo gacanta lagu dhigay iyadoo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyay ee bisha Ramadaan ayaa dadka ku nool magaalada Boosaaso waxay isu diyaarinayaan farxadda Ciidul Fitriga sanadkan dadweynaha magaalada oo intooda badan aan xagaa bixin waxay ka cabanayaan sicir bararka ka dhashay shilinka Soomaaliga oo meesha ka baxay iyo abaaraha jira intaa waxaa si dheer in dadka soo barakacay ay haysato shaqo la'aan ka hor joogsatay in caruurtooda ay ciidsiiyaan sida uu ku warramayo wariye Maxamed Xasan Dhalo oo warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso waxaa maqlaysaa sawaxanka dad isdhaafaya suuqyada dharka iyo kabaha Boosaaso oo loo yaqaan suuqa furshada waa afur kadib waalidka awooda waxa ay daadihinayaan ubadkooda oo ay agabka ciidka u iibinayaan magaaladan xarun ganacsi ayay u tahay Puntland oo badeecadu uga soo degto suuqan waxaa looga adeegaa meelo kala duwan oo Soomaaliya ah magacaygu waa Xasan Maxamuud Shireen waxaa joogaa magaalada Boosaaso waxa soo kacay dharkii ciidda anoo walaalahay iyo ehelkayga iyo qarabadayda u iibinaya magaalada markaa soo galay waxyaalo badan oo ku arkay dharkii oo qaaliya dhaqaaliyo iska yar xaaladdu wax iska jirta xaalad iska abaaro iyo laga soo baxay ummadda Soomaaliyeed marka ugu horeysa waxa leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khair waxaan wanaagsan inkastoo dhaqaale xumo jirto jiraan laakiin ummadda Soomaaliyeed kala mid nahay caaw magaalada waa soo galay meel badan waa soo maray dad badan oo insha Allah waxay sanay way jiraan sidoo dhaqaaluhu yahay iyo sidoo ku xiisanayaan way kala duwan tahay hasa yeeshe waxa weeye hada wax noqotay walba iyo tabartiis iyadoo aysan xilligan Puntland ka shaqeyn shilin Soomaaliga oo ciidihii hore halkan looga adeegan jiray markan waxa kaliya ee wax lagu kala gadanayaa waa dollarka oo uu ka mid yahay kan danabaysan ee la isu diro ciidii Ramadaan ku jirnaa alxamdulillah waa sanadkii koobaad ee Boosaaso gudaheeda lagu ciidayo aan la xagaa bixin sida ay tahay hadana waxaad moodaa in suuqu dharka socodkoodu aanu sidii sanadkii hore oo sanahayn taasoo lagu sababaynayo in ay jirtay abaaro fadma waddanka ka dhaceen dhammaan deegaanada Soomaaliya ay degto badankeeda ka wadaceen ama guud ahaan ka dhaceen marka adigu sanadkan hore xagga dharka keenidooda way sanadkan ka dar badan laakiin socodka ayaa sanadkii hore ka socod badnaa oo sanadka waxaa saameyn ku yeelatay abaarihii waddanka ka jiray oo dhaqaale yari baa dhacday iyo lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd iyaduna aan muddo shaqayn iyaduna qayb ay ka tahay dhaqaalaha hoos u dhacay dadku marka alxamdulillah alamin adigu Boosaaso mar haddii ciidda lagu ciiday gudaheeda adigu ganacsigu dhaqaaqiisu sidii hore waa ka fiicnaan doona sida aan rajo ka qabno insha Allah taala insha Allah abaaraha Ilaahay subhanahu wa ta'ala qaadi doona hadii la insha Allah taala Boosaaso oo ka mid ah magaalooyinka ugu weyn Puntland waxa ku yaal kaama barakacayaal kuwaas oo kor u dhaafaya ilaa 30 kan dadka ku nool inay caruurta ciidsiiyaan ha joogtee waxa ay badankood la daalaa dhacayaan utulyoomka aniga aan dhalay saaka oo dhan waxay ii daba ordayso hooyo dhar ciid baan u baahanahay dharkii ciidana uma hay wax amaloon aniga aan haayana male saaka oo dhan ilmaha waxay laayeen 9 ciyaal baan qabaa 9 ciyaal waxay dhaheen hooyo anaga dhar ciid baan u baahanahay dhar ciidka noo keenay yiraahdeen dhar ciidkina uma hayno maanta hadii aan waxaan u haysan lahayn ma cawaadi lahayn oo kolay cawaadkana la maqli lahayn anaga baraka ah hadaan wax loo heli kartiin haddii walaalaheena oo Soomaaliyeed anagu aan Soomaaliya iskuna dad wax noo heli kartiin
maryamo jibriil maxamed oo ku nool kaamka shabeelle waxa ay sheegtay in ay jirto shaqo yaraan oo inta badan dumar iyo ragba aysan guriga dhaafin. kaamkan shabeelle 7 ciyaal noo haystaa iidaysiga ma haysano maagamuudana waa jirtaa ragana shaqo male anaga haweenka ayna meel ka shaqeysayna malaha tilyoonkeena hadaan baxno marna waa la soo helaa marna waa la soo waayaa hadoo ragga soo helana waa baxsanaa hadoo xaq ilaahay ka soo waayana ku seexana. Boosaaso waxaa lagu jiraa xilligii kulaylaha iyadoo dadka barakacayaasha aysan awoodin in ay u baxaan dhulka qabow ee badi dadka awooda u xagaa baxaan. magaaladan 3 bilood ee xagaaga waxa ay kamid tahay kuwa ugu kulul Soomaaliya. Maxamed Xasan Dhalo, Boosaaso. bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah. haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. haatan aynu aadno dalka koonfur afrika bulshada ku nool gobolka KwaZulu Natal ee dalka koonfur afrika ay saameeyeen daadadkii ugu xumaa ee soo mara muddo 10 sano ah. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo halka ay hore u dhibaateeyeen qalalaaso iyo deganaansho la'aan iyo saameynta cudurka COVID-19 taas oo ku keentay dadka gobolka inay noqdaan kuwa aan wax dakhli ah soo galin inkastoo haddana ay isku dayayaan in ay dib u soo kabtaan waxaase ku dhacay masiibo kale. dowladda ayaa ballanqaadyo kaalmo ah hore u soo jeedisay hase yeeshee weli waxba lagama helin. wariyaha BBC-da Bunsavilani ayaa gobolkaasi tagtay warbixintana soo diyaarisay waxaanse warbixinta inoo soo jeedinaysaa Samiir Cabdullaahi. qabriga kulankoonka Madina oo 3 jir ah waa xasuusta wax walba oo uu qoyskan ka qaaday daadadka ku dhuftay deegaankooda. aaga waxaa ka buuxsamay qashin ay biyuhu keeneen waxaanad arkaysaa digaag ku dul soconaya qashinka. waxaa la dhimatay hooyadeed Nelisiwe oo weli meedkeeda la la'yahay. daadadka waa kii ugu darnaa abid soo mara deegaanka muddo 10 sano ah. daqiiqado gudahooda ayay wax walba biyuhu qaadeen. habeenkiina waxaa soo dumay dhismayaasha guryaha. dadka reer Midimeni oo ah tuulo u dhow Darban ayaa sheegay in ay u yimaadeen in ay caawiyaan ama ay badbaadiyaan dadka kale ee ay musiibadu qabsatay. meel 100 kiiloomitir u jirta Mdima ayaa laga agaasimay jiko lagu quudinayo in ka badan 100 qof maalintiiba 2 jeer. waxa ay mudnaanta koowaad siinayaan qoysaska wixii yaraa ee ay haysteen ku waayay daadadka. Marta Mkundo oo 52 sano jir ah ayaa wado howlaha jikada. dadku way gaajaysan yihiin wayna dhibaataysan yihiin ma shaqeynayaan guriga ayay iska joogaan balse haatan waxaan go'aansanay inaan cunno u karino si wax xun calooshooda u galaan. hase yeeshee xaqiiqdii waan faraxsanahay haddiiba aan caawin karo bulshada maxaa yeelay tani waa bulshadeena oo waa dadkeena. waxay sidoo kale gurigeeda hoy uga dhigtay 2 qoys oo guryahooda daadad ka qaaday. my house gurigani waa gurigayga haddana waxaan siiyay bulshada inay isticmaalaan raalli ayaana ka ahay. waxaa muuqda raadkii ay reebeen daadadka ku dhuftay KwaZulu Natal. dadka iyo guryaha ayay daadadku cagta mariyeen. wadooyinka qaarkood ayaa weli go'an oo aan laga kala gooshi karin. helida cunno iyo biyo nadiif ah ayaa cidhiidhi ah. badankood dadka halkan ku sugan ayaa inoo sheegay inay isugu yimaadeen si ay kuwa kale u badbaadiyaan. dadka saboolka ah ayaa u muuqda inay ilaaween kuwa awoodda leh ee isbeddel u samayn kara. sidaa awgeedna dadku waxa ay bilaabeen inay sii wadaan iscaawinta dhexdooda ah. Midimeni
dadka ku nool waxa ay bilaabeen in ay nadiifiyaan wadooyinka si dadka degan Ndiina ay uga soo baxaan oo ay u soo shaqo doontaan isla markaana iskuulada u soo aadaan iyadoo ay weli jiraan baahiyo waaweyn ayaa haddana waxa ku siyaaday cabsida ah maxaa bulshadan ku dhici doona haddii ay daadadku halkan caadi ka noqdaan. watahay aad bay u mahadsantahay Samiir Cabdullaahi Jaamac oo inala socodsiinaysa warbixintaasi ku saabsan daadadka ka dhacay dalka Koonfur Afrika gaar ahaan gobolka KwaZulu Natal. barnaamijka ciyaaraha tabinta tooska ah Sabtida waxaynu idinkugu soo gudbinaynaa ciyaarta dhaaftay kulanka la isku fardacaynsaday waa ciyaarta garoonka St James Park kooxda calanwalaynaysa ee Newcastle United ay ku qaabilayso kooxda Liverpool ayahay ee Liverpool. Newcastle United ma awooda inay taaka u dhigto kooxda xawaareynaysa ee Liverpool oo cagta ugu haysa Manchester City. mise Liverpool ayaa dhibcaha ka diiran doonta kooxda ay martida u tahay. nagu soo biir tabinta tooska oo soo geli doonta 2 daqiiqo saacadda bariga Afrika oo u dhiganta 12 daqiiqo saacadda London. tabinta tooska BBC. caawa galabta waxa dhacaya kulamo ka tirsan Premier League. Liverpool iyo Newcastle United waxay ciyaarayaan labada iyo barka xilliga bariga Afrika. Aston Villa iyo Norwich City waxay kulmayaan 5 galabnimo. Southampton iyo Crystal Palace waxay is arkayaan 7 fiidnimo. Leeds United iyo Manchester City ayaa iyana is arkaya 7 iyo barka. Dhinaca ligaha Real Madrid iyo Espanyol ayaa 7 iyo barka iyana is arki doona. dhanka kale Mo Farah oo ah ninka 4 jeer ku guuleystay horyaalka Olympic-da ayaa markii ugu horeysay tartami doona tan iyo markii uu ku guuldareystay inuu ku soo baxo ciyaarihii ka dhacay Tokyo. wuxuuna isniinta soo socota ka qayb gali doona tartanka 10,000 ee ka dhacaya magaalada London. Mo Farah ayay wada tartami doonaan Phil Sessman oo ah ninkii ugu horeeyay Ingiriiska ahaa ee dhamaysta marathonka London ee 2012 iyo Chris Thompson oo ku guuleystay Olympic-da Ingiriiska ee sanadkii hore. sidoo kale Boris Becker oo hore u ahaa horyaalka ciyaaraha tenniska ee Wimbledon ayaa lagu xukumay 2 sano iyo bar xariga isagoo lagu eedeeyay inuu qarsaday lacag dhan 2 milyan iyo bar pound oo lacag lagu leeyahay kuwa la amaahiyay si uu uga baxsado lacag uga deymo oo isaga lagu lahaa. Lincoln oo 6 jeer ku guuleystay horyaalka tenniska ayaa waxaa lagu helay 4 dacwadood wuxuuna hore u qaatay koobabka loo yaqaano Grand Slam ee tenniska lagu bixiyo. kiiskan ayaa sababay in ninkan uu hoos u dhac dhaqaale ku bilowdo sanadkii 2017 markii uu iska bixin waayay deymo lagu yeeshay. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacadeennii duhurnimo tan iyo intaanu idaacadeennii subaxnimo tan iyo mar kale duhurnimada maanta nabad gelyo.